wuxuu shir jiraa'id ku qabtay Sheekh Cabdilaahi Cumar Cabdi Daawle Sheekh Rusheeyare xafiiskiisa faraca cusub ee xaruntiisa Shifada Daarutooba uu ku yeelanayo Somaliland taasoo ay ku hiran doonaan shacabweynaha ku dhaqan gobollada iyo deegaanada Somaliland. ujeedka safarkiisa kuma qotoomin yagleelidda xaruntani, balse wuxuu isdhalan rogay qorshihiisa kadib markii ay shacab aad ugu baahini uu kula kulmay magaalada caasimadda ee Hargeysa, gaar ahaan qoysaskii jaarka la ahaa reerkii sheekha uga soo kaxaystay magaalada Muqdisho sidii uu gurigooda xaafadda Xiro Owra looga saari lahaa sixiro in muddo ku daxalaystay ilinka hore ee gurigooda. Eebba mahadiina markii uu shaqadaasi ku guulaystay Sheekh Rusheeyare laga codsaday haddii uu ku laabanayo amaba uu laabanayo xitaa inuusan ka tegin magaalada Hargeysa asagoon ka furin xarun sahlaysa inay sheekha sanadkiiba mar ka helaan si la mid ah kuwa magaalooyinka Mandheera iyo Muqdisho ugu yaala. Aqbalidda dalabkaasi kadib dadaal dheer oo ay sameeyeen shacabka reer Hargeysa oo kaashanaya madaxdooda ayay ku guulaysteen amaba ku guulaystay Sheekh Rusheeyare inuu maanta si rasmi ah uga soo dhex hadlo gudaha xaruntiisa cusub ee xaafadda Jigjiga Yar, gaar ahaan waxa ay kaabiga ku haysaa xarunta garoonka ciidda ee kubadda lagu ciyaaro xaafadda Baxsane amaba guryaha ku hareeraysan garoonkaasi ee Baxsane. laga bilaabana maalinta beri Arbaco ee ku beegan 13 bisha 3 2024 abaare 6 subaxnimo ka shaqo bilaabi doono Sheekh Rusheeyare xaruntani, kuna sugnaanayo muddo xadidan maadaama bishu ay tahay bil Ramadaan. sheekhana ku soo qaato xarameenka ayuu 15 hore ilaa laga gaarayo u sii adeegi doonaa bulshada reer Somaliland. wixii ka dambeeya maalmahaasi xaruntan way sii shaqayn doontaa oo waxa ay sii furnaanaysaa ilaa abid, waxaana diiwaangelin ka sii wadaya howlwadeennada xarunta Hargeysa, isagoona sheekha bacda Ramadaan ku soo laaban doona Somaliland. waa kan shirka jaraa'id ee Sheekh Rusheeyare uu ku faahfaahinayo safarkiisa. waxaan rabaa laba qodob in aan halkan ummadda muslimiinta aan kala wadaagaan dadkeena garanaya luqadan aan ku hadlayo meel kastay joogaan intaba, gaar ahaan dadka maaragtay ku sugan Somaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. waxaan rabaa horta awal inaan iraado رمضان كريم رمضان مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. فرينتا لبعض أن ربنا لو ذاقوا ولا لها مسلمين وحاوي إن مدة با ما رأيتها إلى سو حديدين ضدك ما رأيتها كردغن أما كنول سوماليلاند دلبني أما عدسني إن آيات الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم كا maaragtay ummadda igaga baratay in aan ku caawiyo inaan la imaado maaragtay magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kale oo la midkaaba oo maaragtay Somaliland ah, laakiin saanqaadka iyo tilaabadaba xilligu Ilaahay qoro subxaanahu wa ta'ala buu maaragtay ay tilaabada qaadmaysa ama la qaadi karaya. waxa Ilaahay maadi ah in sabab oo u noqdo imaatinkii aan imaaday magaalada Hargeysa xaaji Axmed Maxamed Ducaale oo ah aabba Soomaaliyeed ee xaqiiqatan isaga iyo xaaskiisii oo igu yimaaday magaalada Muqdisho oo wiliba xanuunsanaysay hooyo Sahro ee maaragtay xaaji Axmed xaaskiisa ahayd oo maaragtay lagu sheegay gurigooda ay ku yaalay Hargeysa sixir lagu sheegay. deedna maaragtay xaajiga yiri ilaa waa inaadna raacdaa. deedna anigana maaragtay ka aqbalay codsiga isaga ahaa maadaama dabeecadaha iyo dhaqanka lagu yaqiinay awal hore ay ahayd halkii wax laga sheega qofka bukaanka shuruudlaan inaan u raaco. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu suurageliyay safarkii dheeraa inuu Ilaahay noo soo fududeeyo, deedna maaragtay Ilaahay nabadgeliyo oo inagu keeno magaalada Hargeysa. ma hadda Ilaahay baa iskale subxaanahu wa ta'ala. hawshii markaan guda galnaan xaqiiqatan dadkii magaalada baa nagu dhigay ama maaragtay na qabsaday oo nagu yidhi ilaa sheekh halkan xarun noogu hirgeli. waxaa Ilaahay maadi marka xaruntii Daarutooba maaragtay anigu aan maaragtay ka shaqeynaya ama anigu aan lahaaba meelo badan ba ka furneed, hadday noqoto Soomaaliya, hadday noqoto Kenya
qeybaheeda kala duwan intaba in maantana uu ilaahay subxaanahu watacaala nasiib nooga yeelo in aan maaragtay ka hirgeliyo caasimadii Somaliland ee Hargeysa xaqiiqatan aad baan ugu faraxsanahay in Hargeysa aan joogo oo nabad ah bash iyo barwaaqo wax cabsi khalkhal aanan jirin dadkii soo dhaway haday noqoto shacab haday noqoto mas'uuliyiin dawladeed haday noqoto culimo haday noqoto wasaaradda diinta iyo awqaafta intaba waan uga mahad celinayaa xaqiiqatan diin jacaylka iyo dad jacaylka iyo maaragtay nooleenta diinteena iyo sunnada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka maaragtay ilaahay ku manaystay waxaan rabaa marka inaan tilmaan inaan uga bixiyo walaalaha reer Somaliland gaar ahaan dadka reer Hargeysa xaruntu aan hirgeliyay waxay ku taalaa Jigjigeer gaar ahaan halka loo yaqaano garoonka Baxsane halka bay dadku iman doona ilaahay idinka insha Allah waxaan rabaa marka inaan kala qaybiyo waqtiyada ee dadku imanayaan rag waxay iman doonaan hadduu ilaahay raad insha Allah 7 subaxnimo bay iman doonaan ilaahay idinkii ilaa maaragtay 8 ilaa 8 barka ragga loo shaqeyn doonaa billahi tabaaraka wa taala 8 barka wixii ka dambeeyana eeroonnimo ilaa 12 kana waxaan u shaqeyn doonaa dumarka mana dhici doonto billahi tabaaraka wa taala sida dadka horey ba ay u barteen haday noqoto qaxootiyaha marka waagan joogay haday noqoto Nairobi Mandera Muqdisho Boosaaso deegaanada iyo magaalooyinka aan tagay sidaan u shaqeyn jiray xaqiiqatan system ka duwanna waan maaragtay ku shaqeyn doona billahi tabaaraka wa taala oo in yaro kooban dad xadidan baan qaabili doona billahi tabaaraka wa taala inta iyo limitkan ugu talagalo dadku markay gaaraana dadna waan joojin doona billahi taala waxaan u sameyn doona dadka dheeriga list baan u sameyn doona billahi tabaaraka wa taala waxaan ku shaqeyn doonaa taladii iyo maaragtay tusaalihii nasiisay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan hagaasimaha oo maaragtay dardaarankii iyo talo bixintii uu siiyay baan xaqatan ku shaqeyn doona billahi tabaaraka wa taala marka reer Somaliland gaar ahaan reer Hargeysa iyo gabi ahaanba Somaliland waxaan ugu bishaaraynayaa muddo waxaad ku tahmayseen inaan Muqdisho ay u timaadaan ama Nairobi ama maaragtay Mandera ama meelaha kale aan joogintaba laakiin maanta waxa ilaahay mahadi ayadoo bil barakaysan oo Ramadaan ay tahay aynu tahay bishii ilaahay quraanka soo dajiyay in safarkii ku soo beegmo deedna quraankana nasiib aad u yeelataan marka waxaan rajaynayaa dadka iman doonana in zaxmadu la yareeyo nidaam darre iyo sharci darrena la ilaaliyo oo dadka isbuurida iyo isjiirida iyo maaragtay qofka maaragtay meesha dagaal lagu sameeyo intaba dadkan waan kala dardaarmaya billahi tabaaraka wa taala si degan in nidaam iyo jadwal degan nidaamka naloo dajiyay iyo jadwalka naloo dajiyay dadka howlwadeenada nidaamka noo dajiyay sida maaragtay nugula talay inaan sameeyno ama nalagu dhoosaa sameeyo halka lama geli karo halkan hal la galo halka la fadhiiso halka lama fadhiisan karo sida aan ku shaqeyno ilaahay idinka insha Allah inta baad walaalaha muslimiinta inaan la wadaago mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay Ramadaan baynu ku jirnaa cibaadada aanu laabno quraanka akhriskiisa waa inuu badino insha Allah aan noqono dadkii maaragtay ka faa'iideystay bishii barakeysan Ramadaan waa duwistii farsamadii iyo codayntii anigoo Maxamed Yuulka inta ruuxinta lamada kulmi doona asxaabay wixii faahfaahintaasi dheeriya fadlan sheekha kala soo xiriir nambarada kala ah 06383333 oo micnaheedu 4 saddexaad ayaad qoraysaa waxaana ugu dambeeya 46 halka nambarka labaadna kaliya aad ka bedelayso nambarka ugu dambeeya oo aad ka dhigayso 47 inta kale waa ay ka siman yihiin